walwal waa jira oo walwalkaasi dadka Soomaaliyeed oo dhan baa qaba waxa weeye ilaa hadda ayaan loogeyn oo bishii June aan ku jirno oo dawladda baarlamaanka hadda jirtay dawladda hadda jirta wax laba bilood u dhiman laba bilood leeg ay u dhiman tahay ayaan ilaa hadda lahayn waqti go'an oo la leeyahay waqti hebel baa xildhibaanadii la soo xulaya waqti hebel baa madaxweynaha la dooranaya waqti hebel baa gudoomiyaha baarlamaanka la dooranaya ma jirto gudiyadii waxa iska shaqeyn lahaa ma dhisna waxaan intaas oo dhan waxa loo hakinayaa oo aan isleenahay kooxda joogta hadeertaan madaxtooyada oo u diyaar garoobaysa inay ayagu noqdaan kuwii soo noqon lahaa marka dadka kale oo dhan fursad lama siinayo marka walwalkaas waa qabnaa oo waxaan leenahay runtii madaxweynuhu waa kii maalin dhaweyto inta security council golaha ammaanku inta yimid waa tii inta la canaantay oo indhaha loo indhaguduudiyay oo warqadda iska saxiixay halka mar iska saxiixay wixii ay soo haysteen afartii sano si degdeg ah waqti ma haysano xaggaan ugu yar waa kii warqadda digreetada oo sharci darrada runtii oo aan sharciga ku fadhin saxiixay waxaas oo dhan waxay muujinayaan in la rabo in processka iyo hanaanka doorashada in la kaliyoobo oo aan dadka kale fursad la siin walwalkaas waa jira laakiin runtii waxa laga maarmaan doorashada in waqtigeeda ku qabsanto oo hal maalin aan xukuumadda jirtay iyo dawladda jirtay ay ku darsoon waxaan xisbiyada iyo anagu qorshaan ka leenahay xataa iyadoo 4.5 ah iyo xisbiyadu doorashada gali doonaan oo sidaan hadda kuma daynayno waxaan ilaalin doonaa gudiyo ayaan hadda shaqo sameeynayna ka hawlgala Garowe iyo Cadaado Baydhabo iyo Kismaayo iyo Xamar meelaha doorashooyinku ka dhacaysa la socon doona faragelinta iyo musuqmaasuqa wixii musuqmaasuqa ee la yimaado waxaan rabnaa doorashadan inay noqoto doorasho ilaa xad cadaalad u dhow ilaa xad maaragtay free election waxay yiraahdaan fair and free election si xalaal doorasho xor oo xalaal ah inay noqotaan rajaynayna laakiin waxaan ognahay in lagu fakarayo in liisas xildhibaanada la qortay in odayaal la qortay oo madaxtooyada ay odayaal iska soo qoratay cusub aan la garanayn meel ay ka socdaan kaarar iska bixi Soomaali kasta in odayaashii hore la bedelayo odaygii laga shakiyaba la isku dayay in la bedelo waxa soo dhan anagu ka soo horjeednaa odayaashii 135 ahaa soo xulay xildhibaanada ayaa noqon doona odayaashii soo xuli doona dadka codka bixinaya kontaykooda waxaan diidanahay liisaska la iska qoranayo waxaan diidanahay hantida qaranka iyo TV-ga qaranka in loo isticmaalo iyo jagooyinka qaranka in loo isticmaalo safiiradii hadda maalmaha la bixinaya dadkii lagu kala meeleynaya generaalada ayaan dhaweyta la bixinayay dhulkii dawladda iyo wixii oo dhan baan ognahay in shaqo haynaa waxaan rabnaa in hantida qaranka TV-ga qaranka jagooyinka qaranka intaba inaan loo adeegsan doorasho si loo soo noqdo inaan loo adeegsan hantidaas iyo doorashadaas iyo kulli waxa soo dhan waxay ka dhaxayaan TV-ga qaranku dadka Soomaaliyeed buu ka dhaxayaa sida TV-yada private-ka oo kale madaxweynuhu hadduu rabo ha adeegsado laakiin TV-ga qaranka si siman ayaa murashaxiintu ay u adeegsanayaan waayo hantida qaranka hanti uu leeyahay ama hanti si gaar ah uu leeyahay lagama bixin canshuurtii dadka iyo hantida qaranka ayaa lagu bixiyaa marka waxa soo dhammi walwal aan qabno way laakiin waxaan soo dhaweynaynaa oo ku adkeysanaynaa inaan hal maalin lagu darin oo doorashada waqtigeeda ku dhacdo haba yaraado waqtigooda aad u rabay